bulshada ku dhaqan degmada Carmo ee gobolka Bari oo ka duulaya barnaamijka isku tashiga Puntland ayaa hirgeliyay markii ugu horeysay mashruuc ay ugu magacdareen Daliftiinshe kaasi oo fududeynaya in bulshada deegaanka ay si wadajir uga qayb qaataan horumarka deegaanka kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada laguna ansixinayay mashruuca Daliftiinshe ayaa lagu qabtay xarunta dowladda hoose ee degmada Carmo dhammaan qaybaha kala duwan ee ka soo qayb galay kulanka ayaa sheegay in wax weyn ka bedeli doono horumarka deegaanka mashruuca Daliftiinshe Daliftiinshe marka waxaan leenahay aad baan u soo dhaweynaynaa mashruuca Daliftiinshe ee degmada Carmo looga dhawaaqay wuxuuna waafaqsan yahay barnaamijkii dawladda Puntland ku dhawaaqday oo ahaa waxa weeye isku tasho Puntland ha isku tashato marka aad baan u soo dhaweynaynaa hanti ku leh maxaan ku raadayay bogcada ku leh gaadiid ku leh dhammaan diyaar waxaan u ahay inaan diyaar kala noqdo lacagta ugu horeysa laga bixinayna koow baan ka yahay hadii ilaahay qadaro bulshada kale message baan gaarsiinayaa waxaan gaarsiinayaa yacni say wax u qaban lahaayeen iyo say Daliftiinshe uga qayb qaadan lahaayeen message u diraya dhammaanba cid kastoo gacan ka geysan karta mashruucan oo ugu horeeyaan dadweynaha reer Carmo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Carmo dadka qurbaha jooga iyo dhammaanba dawladda hay'adaha ku shaqada leh barnaamijkani waa iska wax u qabso ilaahay dartiis ayaa loo qabanayaa Daliftiinshe oo lagu horumarinayo degmada Carmo mustaqbalkeeda waxaan leenahay hambalyo isla markaa waxaan leenahay ku dayo degmada Carmo ku dayo Daliftiinshe barnaamijkan Daliftiinshe aad iyo aad baan u taageerinaa waan soo dhaweynaynaa waxaana dadka ugu horeeyo ku bixinaya kharashaadka iyo wixii looga baahan yahay ugu dambeyntiina gudoomiyaha degmada Carmo injineer Maxamed Cali Shire oo kulanka soo afmeeray ayaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Puntland ugu baaqay inay qayb ka noqdaan barnaamijka isku tashiga Puntland gaar ahaan barnaamijka Daliftiinshe waxaan ku baaqayaa marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay mashruucan iyo mashaariicda la midka ay wadaan khaasatan Puntland gaar ahaan gobolka Bari waxaan kaloo ku baaqayaa dhammaan bulshada dal iyo dibad afarta qaaradood ku nool ama magaraysaay horumarintiisa jecel in ay mashruucaas nagala qayb qaataan kan aanu hadda degmada Carmo ka asaasnayna meelaha aanu ka asaasnayn inay ku daydaan maxaa yeelay ma doonayno in Carmo kale quruxsanaato deegaamada kale iyo dalka Soomaaliya xumaado waxba noo tari mayso wax noo taraya in Soomaaliya oo dhan hagaagto maamulka degmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku howlanaa hirgelinta iyo hagaajinta beerta dadweynaha ee degmada Carmo taasi oo cabirkeedu uu dhan yahay 650 mitir mashruuca Daliftiinshe ay isla qaateen bulshada ku dhaqan degmada Carmo iyo deegaanada ku xiran ayaa la filayaa inuu wax weyn ka bedeli doono horumarka deegaanka Maxamed Barre Saciid Maxamed Dadaal warbaahinta dawladda Puntland magaalada Carmo